موضوع كله إسقنا مهم كا وشعل هنا وحكتها تابطو وحويان الصومالي دولة دجان كا إثيوبيا كنول halkay ka muuqan laadahay ma muuqatee xukunkoodu ma muuqdo saameyn ma laha halkuu dhibku ka jira federaalka marka la jooga saameyn male halkan marka la jooga saameyn male tasarufaad male wax muuqdo oo la qabtay ma jiro marka halkuu dhibku ka jira politically buu ka jira dhibku simple example waqtiga Cabdi Maxamed Cumar eeg federaalka imika dadka inoo matala balag xildhibaanada inoo matala ma nin isaga laftiisa laga turjumayo oo hoolkan baarlamaanka 547 qowmiyadaha kale ka yimid ay fadhiyaan ninka wax la qaybsanaya ee la rabo inuu xaqaaga ka soo dhiciyo la rabo inuu sheego dawlad deegaanka dhibka ka jira horumar darrada miisaaniyada la qaybsanayo resourciga ninkii la rabay haduuna afkiiba garanaynin oo quraano madmadooba una u tahay muxuu ku qaban karaa xilliga dhib male siyaasadii jirtay baa ahayd TPLF-ta waayo halkan dadka jooga ayaa la diidanaa in la dacweeyo oo ninka baarlamaanka halka jooga intuu doodo dhibaatada halkan uu sheego oo baarlamaanka iska taago xilligii Cabdi Maxamuudna nidaamkiisina way ka sii dartayo dadka la xulay maxaa lagu xulanayay karti darro iyo inuu laba qabsan karin inuu ahaado qof sanamo iska taagan oo la yiraahdo ma taqaana waa baarlamaankii Soomaalida waa idol meel iska fadhiya marka af ma garanayaan aqoon male wax kale male shakhsi way jiraan 2-3 qof oo noocaas laakiin uu kuwa kama hadlayo majority-gan ka hadlaya dadkii noocaas xuquuqda ku soo dhacin lahaa noocaas ay noqdeen waxaad u soo daadegtaa marka halkan deegaanka dadka loo magacaabana hadda anugu intii isbedelku yimid sanad meelahayna shaqeynayaan maleynaya ama 9 bilo iyo waxaan u jeedaa adigu sanad way gaaraysaa waxyaabo badan baan arkay marka xafiisada inagu waxaan nahay branch oo imika dadkeenu wasiir hebel bay iska orano maxay horey qofku halkan joogo wasiir ma ahade waa branch waa xafiis waa bureau head weyn marka bureau head kani wasaarad buu ka tirsan yahay wasaaradda haddaan soo qaatay imika beeraha wasaaradda halkan wasaarad ma aha halkan waa xafiis waa laan ka tirsan wasaaraddeedii federaalka loo baahan yahay inay ku xidhnaato marka xafiisada halkan jooga wasaaradihii ay ka tirsanaayeen kuma xidhna meeshii resource lagu qaybsanayay ma tagayaan tababaradii ma tagayaan shirarkii ma tagayaan halkan uu madax xafiisaadka iyo ku-xigeenku bitikaashka yar iyo waxan yar qandaraasadun bay gaarka ka hayaano hadduu Addis Ababa u kaco wuxuu isleeyahay arma wax lagu daba mariya ilaan meeshii qaynuun kama jiro Soomaaliya oo hadduu madax xafiisaadku dhaqaaqo ku-xigeenkii baa boobi marka waa inuu kana haddii imaka haddii ku-xigeenku yiraahdo balor tababarkan inoo taga adigu kana ma tagi kara hawl baan leeyahay budi kana ana hawl baan leeyahay waxa weeyaan waa la iskhayaamayaa nin walba ninka kale isla ilaan meeshii haduuna qaynuun jirin qofku wuxuu doonu sameyn karaa Soomaaliya oo shaqo qaybsi jirin oo nidaam jirin oo sharci jirin oo agaasinku shaqadiisu u madax banaanayn de ku-xigeenkuna wuxuu doonu sameeyni ilaan meeshii shaqo qaybsi ma jiro moogta marka halkana xafiisadii loo baahnaa inay resource-ga doontaan shaqo abuur doonaan ma doontaan hay'adaha tusaale hay'adaha deegaanku jooga waxay doonaan bay iska sameeyaan hal hay'ada horumarin ma jirto bal imika dadkeena hal nin oo ku mashquulsan ma dhageysid war deegaankeena hay'adii horumarinta maxaa u diiday waa un emergency bay ka shaqeeyaan hal shakhsi oo wax barta ama xafiis maamula oo su'aasha isweydiiyay ma arkaysid waa wada emergency-gan maxay nagu kalifay marka waxa loo baahan yahay emergency kuma jiri karnaa emergency-ga inta laga baxo inuu wadanku saldhigo in la yiraahdo hay'adahanow xilliga abaar jirta waan garanay xilliga oo jirta waan garanay xilliga cudur jira waan garanay waxaan u baahanahay hay'adaha horumarinta waxa loo baahan yahay in dawladda Itoobiya qorshe dheeraada in deegaanka loo sameeyo deegaankan wuu burburay deegaanka dib u haday marshal plan inaan sameysano qorshe gooni ah waxa loo baahay ra'iisul wasaaruhu inuu hay'adaha dubihiisa weyn inoogu dhufto qaw uu yiraahdo Soomaaliya kaliya gala Soomaaliya kaliya waxa ka qabta wasaaradihiisa heer federaal xafiiska biyaha inoogu dhufto dubaha beeraha caafimaadka waxbarashada war duba noogu dhufadhaha hal shakhsi oo waxa inishad garanayay ma arkid halkan baa European la isku haysta marka Soomaalidu meesha ka muuqan laadahay labada arrimood baa muhiim ah doorka kale waa kii bulshadii waxa inishad garan lahaydna nin caaraysan oo meel fadhiya iyo mid yaro qandaraas raadinaya
iyo mid qandaraaska irintu waaye ka xanaaqsan qurba jooga oo doonaya inuu wadanka dhaco eriga qurba joog markaan leeyahay anigu dadka halkan jooga u jeeda asalba dadka invest garaynaya qurba joog anigu waxaan u aqaanaa kuwa imika dhuxun cagafta iyo booydaha u geynaya kuwa guday geynaya anu qurba joog kuwaas aan u aqaanaa wadanka wax ku soo kordhinaya South Africa kuwa jooga ee dhagax buur soo dhisanaya qoraxay soo dhisanaya meelo kale soo dhifanaya kuwan wadanka khalkhalinaya maaha marka kuwii muwaadiniinta ahaa ee waxnisheed garayn lahaa ee wadanka wax ka qaban lahaana waa la wada kala dudaya in la kala dudana nidaamkii dadka isu keeni lahaa ee dadka midayn lahaa ayaa kalifaya waayo isaga danba ugu jirta tafaraaruqan haddii fikirka dadku ay mudoobaan dee waxa lama cuni karo waxna lama boobi karo markaa fawdada waxa ka helaya dadkii waxaan midayn lahaa markaa waxaan ka wadaa Soomaalidu meesha ka muuqan laadahay qodobada maadaama ay tahay hadda maxaa xal haddana dhibaatadayna haysata soo isbedel maynaan doonaynin dadkii waxaa dareensanaa ee loo baahnaa hawlaha inay bedelaan haddana doorashadan soo socota kuwiin bay inoo xilayaan dad noocaas oo kale bay raadinayaan waa la yaboohinayaaba nidaamkii Cabdi Maxamuud ku ka sii xunba la yaboohinaya dadka oo karateriya la qoranaya adoo halka iska fadhiya in deedno hebel waa la dhadhaminayaaba tii Cabdi tana ka khatarsanbo qofku waa la dhadhamiyaaba halkan moogta siyaasadana waa la dhadhaminaya ruuxa laftiisana waa la dhadhaminaya kolkaas la oranaya ha hebel asaas waan badeano waan iskaranayna kadib waxa la oranaya dhanka buuran baa inaga moogta hebel dhanka buuran baa inaga wax weyn qofku hadduu yara hadlaya xitaa xagga buuran baa inaga waa laba gedlayo kala gedlayda ka xaggeeda badan xitaa aan qaadano ka xagga shacabka maaha marka mawduucan halkaas aan ku soo gabagabeynaya Soomaalidu meesha ka muuqan laadahay waa halka